بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الأحبة الكرام. إخوتي في الإسلام، ugu horeyntii ilaahay baa mahad iskale subxaanahu watacaala, mahad aada iyo aada u badan oon la soo koobi karaynin, bacdamaa allah subxaanahu watacaala uu inaga dhigay muslimiin, ummaddii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam. in sha allahu tacaalaa maanta oo maalin arbaco ah, taariikhda hijiriyaduna tahay 13 bishii muxaram, 12 bishii muxaram, taariikhda milaadiguna tahay bishii 5 nofembar 2014, sanadka hijiriyaduna waa 1436. waxaan biidni illaahi tacaalaa aan bilaabi doonaa daraasadeennii islaamiga ahayd, taasoo rabbi subxaanahu wa tacaala aan ugu dhowaanayno. intaynaan gelin daraasada islaamiga ah iyo fiqiga axkaamta aan ka hadli doono, haddii ilaahay yidhaahdo maalmaha soo socda, waxaan ka horumarinaynaa kelimad yaroo ahmiyadda tafaquha fii diin illaah, ahmiyadda iyo qiimaha ay leedahay qofka diintiisa inuu barto oo dhog u yeesho diinta islaamka ayaan wax ka taabanaynaa. waana da'bigii culimmadeenna saalixiintii hore, markii la doonayo in laga hadlo cilmi maa, waxaa laga horumarin jiray tarkiib wax la yidhaahdo, ama dhirogelin iyo boorin lagu boorinayo tulaabu cilmiga iyo dadka muslimiinta ahee doonahaya diintooda inay ka faa'iidaystaan ahmiyada uu cilmigaasi leeyahay, ahmiyada ay leedahay barashada diinta islaamku, shareecada islaamka qiimaheeda iyo qaayaheeda. allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay, qul hal yastawi aladiina yaclamuun waaladiina laa yaclamuun. wayaquulu allahu subxaanahu wa tacaala, yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waaladiina uutuu lcilma darajaat. labadaa aayadood waxay labaduba inoo caddaynayaan qiimaha uu leeyahay qofka waxbartay, qofka diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala fahmay, qofka diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala qiimaheeda iyo qaayaheeda dareemay. qul hal yastawi aladiina yaclamuun. nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam baa ilaahay la khitaabaya oo wuxuu leeyahay, ma siman yihiin kuwa aqoonta iyo kuwaan aqoonta u lahayn, qof jaahila iyo qof caalim ah oo garanaya rabbigii abuurtay subxaanahu wa tacaala, oo diintiisa dhog u leh oo aqoon u leh, oo xabiibka calayhi salaatu wasalaam jidkiisa garanaya, iyo qof intaasoo dhan jaahil ka ah, miyay siman yihiin? jawaabta badiihiga ahee qof waliba garanayo, qof aqoon leh iyo qof jaahila isku mid maaha, idan laa yastawuun weeyaan. yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waaladiina uutuu lcilma darajaat. aayaddan dambena ilaahay waxa uu ku qarirayaa subxaanahu wa tacaala inuu ilaahay dadka ahlu iimaanka ah, dadka yidhi aamanaa billaahi wa rasuulihi wa kutubihi wa bilyowmi alaakhir, dadka ilaahay subxaanahu wa tacaala rumeeyey iyo dadka kale inaysan sinnayn. ilaahay inuu sare u qaaday subxaanahu wa tacaala oo qiimo iyo qaayo dheeraada uu siiyey dadka ahlu iimaanka. waaladiina uutuu lcilma darajaat, kuwii cilmiga la siiyey. ila cilmi haddii la sheegay cilmiga sharciga islaamka laga wadaa, haddii laakiin waxa weeyaan la qeydo oo culumta kalea soo gelaysa, marka waxa weeye kuwii cilmiga la siiyey ee iimaankana ilaahay oogu daray, kuwaasi waxay dheer yihiin darajaad bay dheer yihiin oo ziyaado ah. marka ahmiyada ay qiimaha ayay leeyihiin dadka ahlu cilmiga ah. arrimahaasoo dhan waxay inagu boorinayaan inaan diinteenna aqoon u yeelanno oo noqonno dad soo jeeda oo ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa iyo tacaaliimtiisa qaata. nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu isaguna inagu tarqiibiyey inaan diinteenna aan dhagu yeelanno oo fahanno. xabiibka calayhi salaatu wasalaam xadiiskii abi hurayra ee imaam bukhaari raxmat ullaahi calayhi uu soo saaray, wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin. qofki ilaahay uu khayr la doono subxaanahu wa tacaala wuxuu waafajiyaa diintiisa waafajiyaa.
diintiisa ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala fahansiiyaa. diinta ayaad arkaysaa qofkii isagoo isticmaalaya oo diinta ilaahay baranaya oo diinta ilaahay u adeegaya subxaanahu wa tacaala ayaad arkaysaa. xabiibka calayhi الsalaatu wasalaam waxa uu inagu booriyey man salaka طariiqan yaltamisu fiihi cilman sahala allahu lahu طariiqan ila اljanna. waxyaabaha waxa weeye cilmiga qiimihiisa soo saaraya yatafaqh fii diin illaahi subxaanahu wa tacaala, addoonku inuu diinta ilaahay uu fahmo, fiqiga axkaamta ku jirta inuu dhagu yeesho, inuusan noqonin min alkaafiliin. nabigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu leeyahay man salaka طariiqan qofkii qaada wado yaltamisu fiihi cilman uu ku dalbaayo cilmi uu ku dalbaayo, cilmiga shareecada islaamka uu ku dalbaaya, wuxuu doonayaa naftiisa jahliga inuu ka saaro, kabacdina ummaddiisa jahliga inuu ka saaro uu doonayaa, inuu dacwada ilaahay subxaanahu wa tacaala kaalin libax ka qaatuu doonaya, addaalu cala alkhayri ka faacilihi buu doonayaa inuu soo galo, kuwa sunanka wanaagsan lagaga daydo inuu ka mid noqduu doonayaa, ee ajarkiisu ilaa qiyaami saaca u noqduu doonayaa. marka man salaka طariiqan yaltamisu fiihi cilman sahala allahu lahu طariiqan ila اljanna. ilaahay subxaanahu wa tacaala qofka jidkaa qaaday cilmiga uu ku dalbaayo, ilaahay dariiqa jannada ayuu sala subxaanahu wa tacaala. marka istabshir yaa طaalib alcilm, bishaarayso qofka taalibi cilmiga ahe oo doonaya inuu wax barto. waxaad bishaaraysataa waddada aad ku taagan tahay waa waddadii waxa weye jannada ilaahay subxaanahu wa tacaala aad ku galayso. xadiiskaasi xadiis dheer buu ahaa. nebigu calayhi الsalaatu wasalaam waina almalaa'ikata la tadac ajnixataha liطaalib اlcilmi ridan bima yatlub. qofka taalibi cilmiga ah malaa'igta ilaahay subxaanahu wa tacaala garbaheeday ku dejinaysaa raalli ahaansho ay raalli ka tahay waxa uu dalbaayo, raalli ahaansho ay raalli ka tahay waxa uu dalbaayo. bal weliba waxaa u ducaynaya dadka diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala bartay ee culimmada ayaa dadka sii barhaya man fi الsamaawaati waman fi اlard xata alxiitaan fi اlbaxr, xataa kalluunka ku jira badda qofkaasi waxa weeye ilaahay buu uga dalbayaa subxaanahu wa tacaala dembi dhaaf, ilaahay muraadkiisa inuu sahlo, ilaahay dembigiisa inuu dhaafo. namlada iyo quraanjada ku jirta xujrigeeda iyo godkeeda istikfaar bay u weydiinaysaa maarta, sababta waxa waa mucalimu اlkhayr weeyaan. xadiiska isagoo sii socda nebigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu leeyahay walfadli alcaalimi calى alcaabidi ka fadli اlqamari calى saa'iri nujuum. qofka caalimkaa waxa uu ka sareeyaa oo ka fadli badan yahay qofka iska cibaadaysta uuna aqoontaan lahayn, sida dayaxu uu uga qiimo badan yahay ee xidigaha. marka waad dareemi karaysaa miqyaaska halkaa ku jira iyo sida ay u kala sareeyaan. yarfic illaahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutuu lcilma darajaat baad halkaa ka qaadanaysaa. qiimahaasay kala dheeryihin ilaa nebigu calayhi الsalaatu wasalaam markii dambe uu yihi culimmada lagama dhaxlo diinaar iyo dirham, waxa un laga dhaxlaa waxa weeyaan waa shareecada islaamka weeyaan. nebiga calayhi الsalaatu wasalaam intaan bay ka dhaxleen cilmigaas shareecada islaamka iyo risaalada xaqa ilaahay uu u soo dhiibay, taasay ka dhaxleen. oo nebiga calayhi الsalaatu wasalaam laftigiisa lagama dhaxlin maal iyo diinaar lagama dhaxlin, diintaa ilaahay baa laga dhaxlay iyo risaalada nebi moxamed calayhi الsalaatu wasalaam in la gudbiyo. risaalada iyada ah culimmada qaadatay iyagaana laga doonayaa inay gaadhsiiyaan uunka intiisa dhiman oo dhan. marka waxa weeye nebiga calayhi الsalaatu wasalaam faman akhadahu akhada bixadin waafir. qofkii cilmiga iyo risaalada xaqaa qaata waxa uu qaatay cilmi waafir ayuu qaatay, cilmi wanaagsan buu qaatay, hadigii nebiga calayhi الsalaatu wasalaam buu qaatay. sidaa daraaddeed bay saxaabada ridwaan ullaahi calayhim waxay ku dadaali jireen diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala inay dogu yeeshaan si ay naftoodana ugu dhaqmaan, ummadda kaleetana maaragtay u gaadhsiiyaan. ayuha alaxibatu اlkiraam, nebiga calayhi الsalaatu wasalaam arrimahaasoo dhan isagoo inagu baraarujinaya ayaa waxaa laynagu booriyey inaan tafaqahu yeelana diinteenna. fiqhi sidiisaba waxaa la yidhahdaa alfahm baa la yidhaahdaa. waagii horeetana shareecada islaamka o dhan kulligeed fiqhi bay ahayd, oo qofku waxa weeye man yuriid allahu bihi khayran yufaqihu fi اddiin. qofki ilaahay uu khayr la doono waxaa ilaahay u waafajiyaa, diinta ayaa la waafajiyaa, diinta ayaa ilaahay fahansiya subxaanahu wa tacaala usuusheeda iyo furuucdeedaba. laakiin cusuurtii dambe waxay noqotay oo fiqiga loo daayey ile takhasusaadkiibaa badnaaday, baahidii ummadda in loo jajabiyo oo loo jilciyo shareecadeeda islaamka loo baahday.
takhasusaad badan iyo axkaam fara badan. marka axkaamta maaragtay takliifiga ah sida culimmadu raxmatullaahi calayhim ay ku sheegeen markay tacriifinayeen waxay yidhaaheen alcilmu biaxkaami sharciya alcamaliya almuktasiba. waxa weeyaan marka halaashii iyo xaaraamtii iyo waxyaabaha maaragtay muxuu ahaye waxyaabahaasa axkaamta marka loo daayey ee fiqiga shareecada islaamka ah. marka wax allaale iyo wixii shareecada islaamka ah waxa weeye kitaabka iyo sunnada laga qaadanaya. fiqigu xaggee ka yimi? xaggeen ka qaadanaynaa fiqiga? waxaan ka qaadanaynaa alkitaab wasunaan ka qaadanaynaa. alcilmu qaala allahu waqaala rasuulu wa qaala saxaabatu ululcirfaani. cilmiga waxaan ka qaadanaynaa fiqiga, waxaan ka qaadanaynaa alkitaab wasunaan ka qaadanaynaa. haddii alkitaab wasunna aynan ka qaadanay wuxuu noqonayaa cilmi maaragtay maskaxdeenna iyo hawadeenna aan kala imaanay ayuu noqonayaa. sababtoo iyadaa la doonayaa inay wax walba kitaabka iyo sunnada ay hoos yimaadaan xukumtaa laga rabaa. nebigu calayhi salaatu wasalaam fiqiga in fahamka la yidhaahdo waxa uu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiidkii ibnu cabaas radia allahu canhu uu duceeyey allahuma callimhu ta'wiil wafaqihu fi diin buu yidhi. ilaahay waxaad barataa tafsiirka bar iyo tafaasiirta sida loo fasiro qur-aanka kariimka ah, waxaadna ka dhigtaa mid faqiiha ka dhig maaragtay wafaqihu fi ddiin, mid diinta aqoon uloo garanaya ka dhig. marka taasi waxa weeyaan waa fiqhigii fi diinta weeyaan. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala isagoo ka hadlaya wamaa kaana almu'minuuna liyanfiruu kaafa falowlaa nafara min kuli firqati minhum طaaئfaة liyatafaqahuu fi اdiini waliyundiruu qowmahum idaa rajacuu ilayhim walacalahum yaxdaruun. waxa weye dadkii baa laba qeybood loo qeybinaya oo qeybna waxaa laleeyahy shareecada islaamka waa inay bartaan ummadda ay gaadhsiiyaan baa laga doonayaa oo dadka xalaashii xaaraamta ay u kala caddeeyaan iyo waxa ilaahay uu ku waajibiyey subxaanahu wa tacaala iyo wixii ka reeban. qaarna waxaa laga doonayaa inay ummadda difaacaan oo kayaankeeda iyo wujuudka ummadda inay difaacaan oo waa raggii hor istaagi lahaa cadowga diinta iyo cadowga muslimiinta oo ka difaaci lahaa xuquuqda islaamku ay leeyihiin iyo karaamada iyo baydada islaamka. waxyaabahaasuna waxa weye shareecada islaamka aynoo caddaynaya. nimankii shucayb loo soo diray sayidina shucayb calayhi salaatu wasalaam waxay ku yidhaahdeen shucaybu maa nafqahu kaiira mima taquul, waxaad leedahay in badan ma fahmaynay yidhaahdeen. waxaad leedahay eed noo sheegayso in badan ma fahmaynay yidhaahdeen. marka fiqhigu kaasaa la yidhaahda wa kan fi diina la yidhahda. atafaquhu fi diin ayuha alaxibatu alkiraam, diinta ilaahay oo la fahmo oo qofku uu dhuuxeeda iyo qiimaheeda uu dareemo waxay keentaa fawaa'id badan bay leedahay. fawaa'idkay leedahay qofka waxay horta badaysaa qof ilaahay ka baqa subxaanahu wa tacaala ay noqonaya. ziina oo khashyo ah oo qofku ilaahay inuu ka baqo inamaa yakhsha allahu min cibaadi alculamaa. marxaladaasuu qofku gaadhaya oo shalay qofka haddii uu jaahil ahaayo waxyaabo badan uu dhex dabaalan jiray, mar haddii uu tafaquh fi ddiin u helo oo diintiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu wax ka barto, qofkaasi wuxuu noqonayaa qof ilaahay iyo abuurta ka baqa. caqiidadiisaa badbaadaysa. caqaa'idka faraha badan iyo fitanka jira qofka caqiid ahaan wuu u badbaadayaa oo wuxuu ka helayaa nabadba caqiidadiisa u noqonaysaa. adduunyadana waxa weeyaan caqiidada haddii mar laga galo addoommada qofku wuxuu noqonayaa qof munxarif ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala aan si wanaagsan u caabudaynin buu noqonayaa. masalada saddexaadna waxaa weeye waxasunat mucaamalatuhu wa saxat cibaadatahu. waa qofka tafaquh fi diin laga helay weeyaan. kow waxaan nidhi qofku mar hadduu diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala fiqigeeda barto oo diinta ilaahay uu dhug u yeesho ugu horreyntii qof ilaahay ka baqu noqonaya. marka labaadna caqiidadiisiibaa u hagaagaysa u toosaysa. marka saddexaadna wuxuu baranaya keyfa yatacaamal maca annaas, sidee baa dadka loola tacaamulaa, iyadana wuu baranayaa. midda afraadna waxa weeye wasaxad cibaadatahu, cibaadadiisana way asaxaysaa oo qof wuxuu noqonayaa ilaahay waaxidulaxadkahaa subxaanahu wa tacaala si saxan u caabuduu noqonaya. qof cantarabaqash ilaahay ku caabuda ma noqonayo. ayuha alaxibatu alkiraam, markaad u tuura gasho oo u dhowr gasho hadafka laynoo abuuray iyo wujuudka adduunyadan aan ku nool lahoodna kulligeed waa cibaado weeyaan.
allah subxaanahu watacaala wuxuu wamaa khalaqtu اljina waاlinsa ila liyacbuduun walaqad bacahnaa fii kuli ummati rasuula an icbudu اllaha wاjtanibu taaquut. waxa weeyaan hadafka loo abuuray insiga iyo jinniga ilaahay cibaadadiisa weeyaan subxaanahu watacaala, waa ilaahay in la waxido keligii. wain aamanaa biاllaahi rabban wbilislaami diinan wabimuxamadin rasuula wanabiyan, adduunyada tan lagu xaqiijiyo weeyaan. marka qofku sidee buu xaqiijinayaa isagoon diintiisii aan dhegu lahayn oon garanaynin, isagoon diintiisii aan fahmin macnaheedii? risaaladii nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam way adag tahay, sida uu ilaahay u caabudo way adagtahy. wuxuu ku dhacayaa shirki buu ku dhacayaa. in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa. qofkii wuxuu ku dhex dabaalanayaa macbuudaad keyr illaahi subxaanahu watacaala, waxaasan ilaahay raalli ka hin baad qofkii ku dhex arkaysa isagoo dhex dabaalanaya. markaad u dhuura gashana waxaad arkaysaa musiibada halkii ka timi waa jahli can diini illaahi subxaanahu watacaala. qofkani maadaama uu jaahil ka noqdo diinta ilaahi subxaanahu watacaala, taasaa waxay keentay qofkani inuu dhex dabaashay bad uusan awoodu lahayn sida looga soo baxo. marka qofkii cibaadadiisii ma ansaxayso, ilaahay subxaanahu watacaala si hagaagsan uma caabudayo hadduusan diintiisa ayuha alaxibatu alkiraam uusan aqoon u lahayn. marka arrintaa iyada ah waa arrin muhiima weeyaan. rususha ilaahay baa lala soo diray, kutub baa ilaahay soo dejiyey subxaanahu watacaala, xataa ummaddu ay ka baxda jahliga oo ummaddu ay noqoto ummad rabbina leh, diinteeduna halkay u socotona garanaysa, wax badanna maaragtay iska celin karaysa maaragta. sidaa daraaddeed waxaa naftayda iyo ummaddaydaba ugu dardaarmayaa diinta islaamka inaan u soo jeedsano barashadeeda iyo aqoonteeda, ilaa culimmadu ay yidhaahdeen iyagoo ku tirtirsiinaya ama ku dhiiragelinaya tulaabu cilmiga inay diintooda u soo jeestaan. akhi lan tanaala alcilma ila bisita saumbika can bayaaniha bitafsiili dakaaءun waxirsun wabulqatun wa suxbat اlustaadi wa tuula zamaani. waxyaabahaasoo dhan waxay ka wadaan cilmiga gaadhi kari maysid, diintaadana ma baran karaysid ilaa inaad dakaa leedahay, waa inaad maskaxdaada hortaada kuu furan tahay weeyaan. xirsi baa lagaa doonaya iyo dadaal baa lagaa rabaa, inaad wakhtigaaga sida adduunyada aad u siinayso si ka badan inaad diintaada barashadeedii aad u siisaa lagaa doonayaa. waxaa lagaa doonayaa inaad waxoogaa maaragtay aad haysato, aad ku gaadhi karaysid meeshii aad doonaysid diinta inaad ka barato, ama kitaabkii marka aad u baahantahy aad ku gadan karayso. ustaad baa la doonayaa iyo macallim rabbaani ah oo diinta ilaahay subxaanahu watacaala laga barto, cilmiga siqaarkiisa intii laga bilaabo cilmiga yaryareeg iyo masaa'ilka yaryareeg kooban inuu qofku kor u socdo la rabaa, oo alif baa laga soo bilaabaa oo ya ayaa lagu geeyaa. haddiise qofku ya intuu ka soo bilaabo hoos baan u degayaa uu yidhaahdo, tasalsulkaa isaga ah ama taxanaha noocaasa ma aha qaabka saxda ah ee looga baahan yahay qofku inuu ku gaadho cilmi fiican iyo aqoon wanaagsan oo hadhowtuu ku diirsado. ee waxaa suuragala qofka isagaa inuu jahwareer ka qaada ayaa suuragala. marka akhi lan tanaala cilma ilaa bisita saumbika can bayaaniha bitafsiili. waxa weeyaan waan kuu caddaynayaabuu ku yidhi 6 arrimood baa lagaa rabaa. 6da arrimood ee lagaa doonayo waxaa ka mid ah horta waa inaad wakhtigaaga aad wax ka siiso barashada diinta islaamka, waa inaad maskaxdaada furto weeye, waa inaad sheekh wanaagsan aada haysato, waa inaad wakhti dheer aada siiso sidaad shareecada islaamka aad wax uga baran lahayd. waxyaabahaasoo dhan kulli waxay kugu tirtirsiinayaan sidii diintaada aada fiqhiga aada aqoon ugu yeelan lahayd. ayuha alaxibatu alkiraam, diinta islaamka markaad u dhuura gasho waxaad arkaysaa diintu inayba tahayba diin alcilmi waalqiraa'a, diin qiraa'ada iyo cilmigayna baraysa. aayaddii ugu horreysay soo degtay iyo suuraddii ugu horreysay soo degtay ummadda waxay ku leedahay iqra bismi rabbika alladii khalaqa alinsaana min calaq. nebi moxamed calayhi الsalaatu wasalaam markaad siiradiisa dib ugu laabato, suuradda ugu horreysay waxay ahayd nebigaa la yidhi iqra' bismi rabbika aladii khalaq, magaca eebbihii ku abuuray akhri baa la yidhi, ku akhri. ilaahay subxaanahu watacaala nebigu ummi buu ahaa, marka waxaa lagu bilaabay qiraa'ada lagu bilaabay. arrintaasi waxay inoo caddaynaysaa ahmiyada ay leedahay aqoonta bisifa caama, wa fii nafsi lwaqti saasay tahayna ahmiyada ay leedahay barashada diinta islaamka.
sababto iyadaa lagu badbaadaa aakhire iyo adduunka labadaba lagu badbaadaa. marka fiqiga markii laga hadlay ayuha alxibatu alkiraam, fiqhu ma aha axkaam keliya maaha ee wax allaale iyo wixii la baranaayo oo qofka anfacaya waxaa la yidhaahdaa fiqi baa la yidhaahdaa. markii culimmadu ay ka hadlahayaana fiqiga shaamilka ah waxaa soo gelahaya fiqhi اlmaqaasid waاniyaat, fiqhi اlmuwaasanaat wاlawlowiyaat, fiqhi اlikhtilaaf, fiqhi اlcibaadaat, fiqhi dacwa. wax waliba fiqhi bay u baahan tahay iyo fahm saxa ah si umuurta meel walba loo dhigo ama shay walba booskiisa loo dhigo oo umuurtu aysan isku dardarin. haddiise aysan fiqhi aan loo adeegsanin oo fahm saxa aan loo adeegsanin, waxaa imanaya khalal baa imanaya, isku dhac fara badan baa imanaya. sidaa daraaddeed culimmadu raxmatullaahi calayhim fiqhi اlmucaamalaat, fiqhi اljinaayaat, fiqhi اlqisaas, waxyaabahaasoo dhan kulli waa abwaab ka mida abwaabta axkaamta islaamka ee kulligeed kitaabka iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam laga soo qaatay. marka waxyaabahaasoo dhan waxaa loogu talagalay qofku inuu aqoon u leeyahay dheeraad ah si uu u noqdo qofkii qof wax fahmi karaayo. culimmadu raxmatullaahi calayhim fiqiga si wanaagsan bay u bayaaniyeen. majaalis badan iyo tajamucaad fara badan iyo mowsuucaad aada iyo aada u tiro badan iyo kutub badan oo laga qoray baa jirta axkaamta islaamka, ilaa culimmadu markii dambe intay ijtihaadeen madaahibta afarta halka ay ka soo baxeen. baahidii markaa loo qabay in la jirciyo shareecada islaamka iyo kitaabka sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam, taasoo xaqiiqatan imaam walba uu ku saleeyey madhabkii markaa isagu uu nashriyey ee kitaabka sunnada laga soo qaatay, in tulaabu cilmigu meelay joogaanba ay ka faa'iidaystaan kuna taqayudaan kitaabka iyo sunnada. aimada afarta markaa dib ugu laabato waxaad arkaysaa aqwaashooda iyo hadalladooda qiimaha badan ee ka soo fulay inuu imaam walba leeyahay wax allaaliya waxaan ku hadlay ama wax allaaliya wixii aniga iga soo fulay kitaabka iyo sunnada ha loo bandhigo. kitaabka iyo sunnada hadday ka hor yimaadaan derbiga ha lagu tuuro. imaam maalik buu ahaa raxmatullaahi caleyh kii yidhi qowl walba oo qofka ka soo fula waxa weeyaan waa la radiyaa, waana la qaadan karaa hadduu sax yahay, waana la iska diidi karahayaa ilaa saaxiba hada alqabr. nebiga calayhi salaatu wasalaam qabrigiisa intuu farta ku fiiqay ayuu wuxuu yihi basharku hadallada ay ku hadlaan iyo cilmigooda iyo aqoontoodu waa naaqus weeyaan. nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waxaan ka ahayn inta kaleo dhan waxa weeye waana la radin karaa, waana maaragtay muxuu ahaaye waa la qaadan karaya haddii ay xaqa ayaa siibaan. sidaa daraaddeed baa fiqigu mundu cahdi nebiyi calayhi salaatu wasalaam culimmadu raxmatullaahi calayhim waxay ku dadaali jireen inuu qofku diinta ilaahay uu dhagu yeesho uu fahmo. wixii markaa isagu uusan garanayninna oo aqoontiisu ay ka gaabatana inuu ku wareejiyo ciddii markaa culimmahoo garanayso isaga wax ku dhaanta. leannu cilmigani waxa weeye cilmi waasaca weeyaan, waa fahmi ilaahay uu siinayo ciddii uu doono subxaanahu wa tacaala. haddii marka qofkii uu masaa'ilkii iska dhex boodo isagoon aqoon u lahayn ama baxhi aan ku dilin, qofkaasi marka wuxuu noqonaya naftiisana wuu dulmiyey, ummaddii uu fatwooday wax u sheegana iyagana jaa-ifo iyo dembi buu ka galay. sidaa daraaddeed baa cahdiga nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa dhacday nin baa madaxa waxaa ka gaaray dhaawac baa ka gaadhay. marka maalintii dambe ayuu weydiiyey dadkii saxaabadahaa oo yidhi ma qubay janaaba ninkii ku dhacday? wuu isku janaabooday, shahwaa ka timi. ninkii saxaabadii la socotay buu weydiiye wuxuu yidhi ma qubaysan karaa? rag baa u fatwoodoo yidhi waad qubaysan kartaa. sidiibuu ku qabaystay, kabacdina naftii baa ka baxday oo ninkii sidiibuu ku dhintay. khabarkii baa nabiga calayhi salaatu wasalaam la gaarsiiyey. markii nabiga khabarkii la gaarsiiyey wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam qataluuhu qatalahum allah, allaha dilo way dileene. inamaa shifaau cayi su-aal, inamaa shifaau waxaa ku fileen ninkaa isaga ah cayiga su-aal maaragtay in la weydiiyo uun ciddii garanaysa ayaa ku fillayd ee waxa weeyaan way dileen nebiga calayhi salaatu wasalaam halkaa ayuu yidhi. marka waxaa loo baahan yahay qofku inuu ku degdego ma aha, waa in waxaa la doonayaa wixii adiga kugu yaraado aqoon ah inaad maaragtay weydiisid ciddii markaa adiga ku dhaantaa la doonayaa. inamaa shafaa lcayi su-aal,
cadamu fiqhi fi diin ayuha alaxibatu alkiraam. diinta islaamku si dhaba loo fahmin hadda waxay keentaa jahli bay keentaa, waxay keentaa dhibaato badan bay keentaa, waxay keentaa qofku inuu ku dhaco bidac iyo khuraafaat iyo waxyaaba maa ansala allahu biha min sultaan ah oo ilaahay baa inoo jeedanay sala allahu calayhi wasalam. waxay keentaa qofku inuu sida ilaahay ula tacaamulo garan kari waayo, cibaadadii sida uu tukado ilaahay inuu garan kari waayo. waxaad arkaysaa dad badan oo muslimiinta ka mid ah oo salaada sida loo tukadaan garanayn, oo sida sakada loo bixiyaan garanayn. waxyaabahaas o dhanna waa waajib. nabigu calayhi الsalaatu wasalaam isagoo ka hadlay wuxuu yidhi طalab اlcilmi fariidatun calى kuli muslim. qof kastoo muslima cilmiga shareecada islaamka inuu dalba waajib bay ku tahay. waliba waxaa jira waxyaabo macluum min addiini bidaruura la yidhaahdo. qofku sida uu tukan lahaa, sida uu u tahaaraysan lahaa, sida uu u soomi lahaa, sida uu xajin lahaa, sida uu isaga wax u gadan lahaa, waxyaabahaasoo dhan kulli waa inuu aqoon yeesho weeyaan. intuusan gelin ka hor cibaadada, intuusan mucaamalada gelin ka hor waa inuu aqoon yeesho weeyaan. wailaa haddii kale qofku wuxuu noqonayaa qof tacab khasaaray ku dhacay ayuu noqonayaa. loomana baahna arrinta iyada ah inuu qofku maaragtay uu dhex dabaasho, looma baahna. ayuha alaxibatu alkiraam, rabbi waxaan weydiisanaynaa subxaanahu wa tacaala inuu inaga dhigo kuwa fuqahada ee caamiliinta ah ee shareecadooda islaamka ku dhaqmay, kana run sheegay, ummaddana gaadhsiiyey. meel walbo ay ummaddu joogtana baahida maanta aan u qabno inaan diinteenna aan fahanno waxaan oga baahi badannahay ma jirto. imaam axmed raxmat ullaahi calayhi ayaa wuxuu yidhi cilmiga iyo barashadiisa wax u dhigma ma jiro haddii laakiin bishardi niyaddu ay hagaagto. naftayda iyo idinkaba waxaan idin dardaarmayaa inaan ku taqayudno 3 arrimood. 3da arrimood waxa weeye camal walbo aan samaynayno haddaan diinta baranayno iyo haddii aan camal kala samaynaynaba inaan allah subxaanahu wa tacaala keligii aan u dayno. arrintaa iyada ikhlaas baa la yidhaahdaa. wamaa umiruu ilaa liyacbudu اllaha mukhlisiina lahu diina xunafaa. ilaahay baa subxaanahu wa tacaala ina amray, ummadihii naga horeeyena amray keligii inaan u dayno wax allaalay iyo wixii cibaado o dhan. arrinta labaadna waxa weeye inaan kaga dayanno wax allaaliyo waxaan samaynaynoo dhan nebi moxamed calayhi الsalaatu wasalaam. iyadana mutaabaca la yidhaahdaa. wamaa ataakum arasuulu fakhuduu wamaa nahaakum canhu fantahuu ayuu ilaahay leeyahy subxaanahu wa tacala. midda saddexaadna waxa weeye aliimaanu biاllah. man camila saalixa min dakarin aw unhaa wa huwa mu'min falanuxyiyanahu xayaatan طayiba. ilaahay subxaanahu wa tacaala xayaato طayibaha inagu nooleeyo. intaasaan kusoo gebagabaynayaa kelimadaydan ka horeysa intaana darsiga bilaabin. أكتفي بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا وإلى اللقاء آخر إن شاء الله.